shirgudoonka mudanayaasha sharafta badan ee golaha wakiilada dowladda Puntland xogayaha agaasimayaasha iyo howlwadeennada golaha iyo warbaahintaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. subax wanaagsan mudanayaal. ilaahay inuu anfaco aayadihii qur-aanka ahaa ee uu noo akhriyay xildhibaan Cawaale. mudanayaal, saaka waxaa ina hor iman doonta wasaaraddii maaliyadda iyo xisaab xidhkii, balse inta ay diyaar garoobayaan ee ay inoo imanayaan waxaan sii qabanaynaa dhowr shaqo oo yaryar oo kooban oo aan saa u sii badnayn. midda koowaad, waxaa hortayda taalla waraaq ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo ku saabsan ansixinta iibka dhulka laanta bangiga ee degmada Galkacyo. sidaa daraaddeed waxaan ka codsanayaa xoghayaha inuu inoo akhriyo qoraalka xafiiska ka soo baxay madaxweynaha. almaasantiin. warqadda tirsigeedu yahay 128/2021 Garowe bishii Juun 2021 ku gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland ujeedo ansixin iibka dhulka laanta bangiga degmada Galkacyo. mudane gudoomiye, waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa ansixinta iibka dhulka laanta bangiga degmada Galkacyo oo lagu ansixiyay shirkii golaha xukuumadda dowladda Puntland 10kii bishii Juun 2021. dhulkaas oo cabirkiisu yahay 45 lagu dhuftay 50, waxaana lagu iibinayaa lacag dhan 400,000 ilaa 500,000 dollar. dhulkaas oo laga maarmaan u noqday in la iibiyo kadib markii uu ku habboonaan waayay inuu bangigu ku sii shaqeeyo, lana doonayo in dib u casriyeyn lagu sameeyo laanta bangiga ee degmada Galkacyo. sidaas daraaddeed mudane gudoomiye, waxaan ka codsanayaa golaha wakiilada inay ka doodaan kadibna ansixiyaan si waafaqsan qodobka 52 farqadiisa 3 ee dastuurka dowladda Puntland. wada shaqayn wacan waxaa ku saxiixan madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. wabillahi tawfiiq. waa xogayuhu wuxuu inoo akhriyey qoraalkii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. sidaa daraaddeed shaqo kasta oo aynu qabanayno waxaynu u maraynaa dastuurka dowladda Puntland iyo xeeroosaadka iyo xeerarka dalka waxay ka qabaan. sidaa daraaddeed qodobka 52aad ee dastuurka dowladda Puntland wuxuu ka warramayaa gadida hantida ummadda. sidan ayuuna u dhigan yahay. farqadda koowaad, wareejinta hanti kasta oo dowladdu leedahay waa in la mariyo habraac sharci waafaqsan. farqadda labaad, lama iibin karo hanti ummadeed haddii aanay dowladdu dhinac ka ahayn. farqadda saddexaad, hanti kasta oo qiimaheedu ka yar yahay 55,000 oo dollar waxaa awood u leh golaha xukuumadda. wixii ka badan 50,000 oo dollar waxay u baahanaysaa ogolaanshaha golaha wakiilada. 4, gadida hantida dowladda waxaa loo marayaa habka tartanka xaraashka furan. mudanayaal, sharcigu sidan ayuu qabaa. marka maadaama ay ka badan tahay qiimuhu 50,000, goluhu waraqadan waxay u baahan tahay inay cod ka hesho golaha. sidaa daraaddeed codaynta waynu gudagelaynaa insha allah billahi kariim oo ka jawaabi doonaa marka howlwadeennada haynoo diyaariya. mudanayaal, ansixinta iibka dhulka laanta bangiga ee degmada Galkacyo yaa ogol? yaa diiday? duudno. aamus. mudane la aamuso. codaynta inta socoto. codayntii ansixinta iibka dhulka laanta bangiga ee degmada Galkacyo waxay u dhacday sidatan.
quorumku waa 43 ogol waa 41 diidmo waa eber aamus waa 2 43 codsaasay ku leeyihiin sidaa daraaddeed ansixinta iibka dhulka laanta bangiga ee degmada Galkacyo sidaas uu ansix ku yahay insha Allah laakiin laguna marin doonaa habraacyada kale shaqada wixii oo dhan waana mahadsantiin odayaal